الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. waxaan maanta oo maartay taariikhdu ay tahay 1 bisha October 2025 wax ka oranaynaa hadallo fara badan oo Xasan Sheekh ka soo yeeray labadii isbuuc ugu dambeeyay ugu horeeyay waraysigii telefishinka Carabiga uu siiyay oo maartay sheegay maartay wax badan gobolka Sool ka sheegay waxaan kala ku daraynaa hadalkii Doraad oo baarlamaanka furitaankiisii ka yiri labada shay baan isku kabaynaa waxaan kala isku kabaynaa 3 sano iyo barkii uu madaxweynaha soo ahaa dhaqankiisii dawladnimo maartay wixii maartay ka muuqday iyo Doraad baarlamaanka markuu hortagay sidoo u hadlay kuwaasna way barbar dhigi doonaa dadka waxaan xusuusinaynaa Xasan qofka uu yahay dadka xusuusinaynaa iyo wax laga talagelayo aan ku bilownay dagaalkii Laascaanood markuu socday Xasan waxyeello mooye wax tar uma geysanin iyadoo ay ku dhinteen boqolaal qof ayuu yiri UN isagoo hortagay oo wakiilkii Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa Puntland u qaabilsan uu la socdo 37 qof baa dhimatay oo kacdoon bulsho ku dhimatay iyadoo Security Council-ka lagaga dooday oo la yiri meesha xasuuq baa ka dhacay Soomaaliland xasuuq bay Laascaanood ka geysatay biyihii laga jaray oo la duqeeyay korontadii la duqeeyay oo laga jaray cusbitaaladii la dumiyay internetkii la duqeeyay oo laga jaray oo baddo magaaladu ay ku jirto maalin ma oran xabadaha laga daayo Xasan halka markay mareysay la yiri meesha xasuuq baa ka dhacay wuxuu yiri aniga hal ii daayo wana qabataynayaan la saarin maxkamadda caalamiga dambiyada dagaalkana yaan cidna looga yeerin cidna yaan laga diiwaan gelinin saraakiishii iyo wasiiradii iyo madaxweynaha Soomaaliland yaan midna laga diiwaan gelinin arinta aniga hal ii daayo sidee taasi ugu soo gasho wuxuu sameeyay ismada SSC buu xamar ugu yeeray uu isla sawiray kuwa qabaa'ilka koonfureed in badan oo ka mid ismadooda wuxuu u diray Hargeysa 4 bilood bay halka fadhiyeen 4 bilood maalina meediyaha kuma soo bixin New York maalintuu tagay wuxuu ku yiri Muuse isla sawir nimanka kula jooga labadii sawir buu soo qaatay wuxuu yiri Hargeysa ma aragtaan waxa jooga ismadii koonfureed xamar ma aragtaan waxa ila fadhiya aniga ismadii SSC meesha dib u heshiisiin baan ka wadaay Security Council faraha ka qaad waa loo daayo macquul sidoo kale iigad buu sii maray iigad wuxuu arinta faraha laga qaado hal la dilo hal la igu raaco hal la yiraahdo meesha dib u heshiisiin baan madaxweynuhu ka wadaa case-kii Security Council-ka ahayd cunaqabatayn iyo dambiye dagaal iyo maxkamadda dambiyada caalamiga ee dambiyada dagaalka in looga yeero madaxda Soomaaliland oo lagu dacweeyo halkaas ugu damay wax tar uma geysan xabad baartismool wax ka badan iska daayay ma tarin labadii isbuuc u dambeysay waxyaabaha ka soo baxay waraysiyadii uu bixiyo Carabiga ku bixiyo waxa kamid ah waraysigu yiri Laascaanood waxay ahayd meeshii wadaadkii waa la ka soo baxay Said Maxamed Cabdulla Xasan oo 22 sano hogaaminayay dagaal hubeysan oo kaga hortagay gumeystigii Ingiriiska kii Xabashida kii Talyaaniga oo ka hor joogsaday dalka Soomaaliyeed inay cag dhigaan horseedayna lixdamaadkii Soomaaliya inay xorriyad hesho wadaadkii waa laaba ku tilmeeyay oo carada Ingiriiska u qaadeen oo dagaalkii lagu wada jiray saxaafadeed iyo kii hubeysnaa Ingiriiska iyo daraawiish ka dhaxeeyay magacii ay u bixiyeen iyo maanta wuxuu tixraac intuu ka dhigtay waa meeshii wadaadkii waa la ka soo baxay oo sayidka ayuu ku tilmaamay wadaadka waalan wuxuu yiri waa meeshii madaxweynihii dalka lagu dilay Laascaanood Allah u naxariisto madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke Laascaanood ma dilin reer Laascaanoodna ma dilin in la dili doonana ma ogeyn in magaalada lagu dili doonana ma ogeyn madaxweynaha ay soo bambaxeen oo soo dhaweynayaan oo raggii watay ilaaladiisa ay dileen inuu eed uga dhigo meeshaasi waa meeshii madaxweynaha lagu dilay waa ayaan daro kale oo Xasan uu la doonayo inuu maartay ka dhigo meesha qurub xaraana ka dhigo xabaasha la ekaysiyo dibaan daabiyooyinka iyo dabinada uu qoolayo uu yiraahdo يعني تحرع وقدر يقول ماشي ويحرش ده يولي جاده هيد وحكلاش ماشي ومال يسكو هيستبوا يوري wuxuu kaloo yiri maxaabiista hal sii daayo
baarlamaanka markuu hortegay maxaabiis waxa is dhaafsaday dad heshiiyey oo nabad isla qaatay oo isu caloolfayow ayaa maxaabiis is dhaafsada wuxuu kala ku daray wadada fure buu yiri ma kala maarantaane Soomaali oo dhan baan kala maarmin laakiin labadii dhibaato dhex taala waxa la rabaa dhibta marka hore inay ka heshiiyaan way fiicnaan lahayd dadka Soomaaliyeed oo deriska dhamaantood inay heshiiyaan inay wada noolaadaan in ganacsiga iyo isdhexmarka iyo wax waliba ay maartay qofba meeshii dantiisa jirta uu aado laakiin de waa markii isku dan laga yahay oo maartay la isku waafaqsan yahay weeyaan hal dhinac maaha interestigiisa iyo dantiisa kaliya in la doono xasan hal dhinac buu dantiisa raadinayaa waxa ku cadeynaysa xasan inuu hal dhinac dantooda raadinayo Soomaaliland kaliya dantooda ka shaqeynayo xildhibaanadii qoy galbeed ka yimi dowladda federaalka inta xasan hawlaha wado tan iyo maalintii firdhiye uu tagay Djibouti oo muxuu ahaayay ina geelle iyo xasan sheekh iyo firdhiye ku kulmeen Djibouti maalinna lagama maqal nimanka dib gobsan iyo maareeye iyo qayla lagama maqlo durbaanka xasan bay tumaan oo kaliya ku maalay bay yiraahdaan waayo wuxuu aniga wax idin og kama maarmaysa inta uu sheegayo waxba ku hoos jira waxa la rabaa si maxaabiista la isugu dhaafsado oo maartay nabad loo helo oo cidii aan dambi maartay ku eedeysneen culus saraakiishu waa kuwii dagaalka hogaaminayay waa kuwii lahaa sida Faysal Cabdi Bootaan oo kale afkiisa laga hayaa laascanadu waa dubinaynaa afkiisa laga hayaa dadka waan ulaynaynaa de dambi buu ku jiraa isagu xasuuq wixii dhacay oo dhan isaga loo haystaa iyo inta ka hooseysa iyo wasiirkiisa gaashaandhiga iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha iyo Muuse Biixi ragaas oo dhan waa eedeysanayaal dambiye dagaal galay weeyaan hasi ahaatee askarta amarka ku timi oo lagu shaqaysanayay iyo intii aan dambi ku cad oo u gaarihi jirin oo aanay darajadooda iyo awoodoodu gaarsiinin inay maartay cid amar ku siinayeen in wax la laayo dambi la galo waa la kala meeri karaa hasi ahaatee waxa ka horeysa horto Soomaaliland mabaadiideeda ma ka tanaasushay haddii Soomaaliland mabaadiideeda ka tanaasusho oo ay dastuurkeeda intay furto ka saarto dhulka harti waqooyi uu degan yahay gobolka Sanaag magaalada Garadag Ceelaf Weyn iyo Ceeri Gaabo magaalada leeyahay inta ay ka degan yihiin baa Soomaaliland ku leedahay gobolka Sanaag inta kale sheegashada ay sheeganayso gobolka Sool Highland iyo Cayn inay ka tanaasusho dastuurkeeda ka saarto madaxda golayaasheeda ku jirta xilka ka qaado dhamaantood ciidamada hubeysan oo sida ina Cambaashi ka mid yahay maxaabiista la isdhaafsanaya ay ku soo darto nabada way iman karaysaa markaa way ciidina cid wax kama haysato markaas waxa rabaa markaa inamadii Maxamuud Hiraab oo firdhiye maqadin u yahay oo timacade ku jiro oo Cabdi Qowdhan ku jiro oo Bidhaan ku jiro oo Garaad jaamac Garaad Ismaaciil ku jiro oo Garaad Abdullah Garaad Saleebaan ku jiro ma awoodaan inay yiraahdaan ku dhawaaqaan oo yiraahdaan Xasan Shiikhow madaxweyne Ciro ha ku dhawaaqo dastuurkana ha ka saaro waanu ka tanaasulay dhulka harti waqooyi uu leeyahay ee gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ah dastuurka iyaga waa ka saaray madaxdii golayaasheeda ku jirina waa ka saar xilkii waa ka qaadnay wixii ciidan nala joogana maxaabiista la wareejin doonay ka mid noqon doonaan horta nabaddu halkaas ay ka xidhmaysaa xasan meel aan jirin buu ka raadinayaa wuxuu raadinayaa kaliya guul buu wuxuu la raadinayaa Soomaaliland buu guul la raadinayaa laakiin ma rabo inay nabadgelyaheedaan dooni maayo dadka ku nool maartay carradul baahantay iyo carra warsageli inay nabad helaan xasan dooni maayo inay deganaansho helaan dooni maayo waayo inta Soomaaliland ay leedahay dhulka annaga leh de nabad iman mayso waanu qaldan yahay marka uu yiraahdo maxaabiis ka hadlo hore waxaan u maqli jiray xasan oo yiraahdo loo joojin ma saddexdii sano iyo barkii uu madaxweynaha loo joojin ma ana awoodda iskale ana xamar jooga caasimadii jooga dornaad baarlamaanka markuu ka hadlay wuxuu yiri maartay waa loo joojihaa cidna laga tagi ma waxaan maqli jiray dab nin qaaday ka Bidhaan xasan gudcur buu qori daba qaatay qorigii dabka ahaa de isagu ka bidhaamaya isagu ka muuqda cidda wax qaribtay cidda heshiis diiday cidda Soomaali kala dirtay
cidda diiday wada hadal waxaas oo dhan waa keligii bay ku koobnayd Puntland in badan bay ku baaqaysay tan iyo maalintii Xasan uu yimi xukunka Puntland waxay ku baaqaysay nabad bay ku baaqaysay wada hadal bay ku baaqaysay cidda kaliya dastuurka Soomaaliyeed difaacisay ahayd oo lahayd war dastuurku waa xaq dadka Soomaaliyeed ka nool iyo ka dhalan doonaba ka dhaxeeyay sida uu qoran yahay waxa loogu qaybsado talada loo qaybsado hal wada hadlo dawladnimadu dadka ha ka dhaxayso khayraadku dadka ha ka dhaxeeyo si sharci ah loo qaybsado si sharci ah loo maamulo siyaasadda si degan oo nabadgelyo ku jirto oo la is ogol yahay oo wada rogola ha loo maamulo Xasan wuxuu ordo wuu xiiqay Xasan waa xiiqay gidaarku soo taabtay waaga hortiisa ka bariyay wuxuu ku soo dhacay wadadii Puntland ay 3 sano iyo dheeraadka ugu baaqaysay Xasan oo ay gogosha dhigaysay garow dhigaysay oo ay lahayd war fagaare banaan oo loo jeedo Xasanow aan ku wada hadal danta Soomaaliyeed siday ku fiican tahay in loo maamulo aan ku wada hadal leh war Xasanow aan isu nimaadno markuu daalay oo gidaarka soo taabtay iyadii buu noqday wadadii Puntland baa loo soo noqday hadiyad baan ugu faraxsanahay markaa odaygu maartay markuu daalay in uu u soo noqday sharcigu sidoo ahaa waxaan filayaa inuu ku dhawaaqi doono dastuurku meelgaarka ahaa inuu sidiisa u aqoonsan yahay tuuri doono wixii uu sacbalaadkii shaydaanku u waxyooday oo qorqortay dastuurka ku sheegay kuwa baarlamaanka uga sacabinaya doraade waqooyi ee ka soo jeeda muxuu ahaayay carradhu bahantii carra warsigeli waxaan leeyahay xildhibaanada ah dantii dadku waxay ku jirtay dastuurkii ku meelgaarka ahaa sidoo u qoraa Xasan nabad idinla dooni maaye wuxuu idinla doonayaa maartay in wixii lagu soo tabcay inay daataan oo dadkaasi kala tago midnimada lunto buu idinla raadiyay inay midnimadii goboladaasi dunto oo ay go'doomaan oo muxuu ahaa dagaal la sokeeyo mar kale ay ka dhacaan baad ugu sacabinaysaane maartay waxa fiican inaad toobadkeen idinkuna noqotaano dadkiinu waxa ay doonayaan iyo waxa ay u dagaalameen inaad u soo noqotaan inay ammaan helaan nabad inay helaan nolol inay helaan dhulka maartay Soomaaliland ay ku haysato Soomaaliland inay ka tanaasusho tiraahdo war anagu kuma haysano maartay dhulbahantii warsigeli dhulkooda kuma haysano inay inta yiraahdaan oo ay afkooda ka soo baxdo Firdhiye iyo nimanka Maxamuud Hiraab afkooda bal markii ka soo baxdo Soomaaliland iyo Xasan ku dhawaaqeen in dastuurka Soomaaliland laga saaro inay dhulka iyagu leeyihiin bal inta laga helo maxaabiistu ha joogto markaas oo nabad la isla qaato dadku hay saddex maro markaa kadibna baa camisriga iyo nolosha iyo saddex marka iyo qofka dantiisu meesha gasho ha furanto